السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا حسوس قر دختر إدين قرطو إدين ديارسو دكتور باق بوبال أي كسو ديارسو مقالة هرقيسا ميسي سؤاشي وليقا سيدباد قف أدري كرتا أدقانا هب هايسان سيدباد قف أقورعي كرتا أدقانا من دي هايسان سيدباد قف أتشر أقردي كرتا ودولك وقدعي أدقانا الريحن أو آنا طابا سيدباد سن أسو دينيسا دادك الدليسا أدقانا مص أهين sidebaad nabarada u furi kartaa aad u jeexi kartaa adigoo aana haysan mindi sidebaad sabab u noqon karta inuu qof habeen oo dhan uu soo jeedo oo hurdada indhiis aad ka kaxaysid isagoo murugaysan ma ogtihiin eriyada afkeena ka soo baxda inay marmar ay noqoto sayf iyo waran ay noqonayso oo awood u leedahay inay wax disho marmar qaarkood hadalka afkeena ka soo baxa waa hadal aad u kulul oo bilaa naxariisa marka aanan dadka dareenkooda aanan ilaalin oo waxaan doono aan ku niraahno ama si xun aan u eegno oo taasuna ay dhaawacdo dadkii nool iyo dadkii dhintayba carabkeenu wax buu dilaa hadalkeenuna wax buu dhaawacaa markaad la fadhiisatid gabadh lugaheedu ay ka daaleen wareeg iyo dhakhtar ay ka daaleen oo habeenkasta soo jeedayso odhanaysa rabbi laa tadarni fardan wa anta khayru lwaarithiin oo ilaahay weydiinaysa ubad aad ku tiraahid baxaad ubad u dhali weyday baxaadnad caruur u lahayn heblaayo 10 caruura dhashay sidii aad ku tiraahid qof indhabeelay ama ilaa aad ku tiraahid cawar sidii Soomaalidu ay ku maamaado balaayo ilaa ama lugla isagoo runtiina u dagaalamay xornimada dalkeena oo ishan uu waayay ay tahay sababteed maanta nabadgelyo dalka ugu nooshahay sidii aad ku tiraahid gabadh buuran oo wadadii socota wad buurantay ama aad ku qosashid adigoo aan ogeyn inay gabadhaas ay bugto oo xanuun ay qabto oo dawooyinkan isku daweysa ay ugu wacan tahay inuu miisaankeedu kordho oo ay naaxdo sidii qofkii faqiirka aad ku tiraahid faqiir baa tahay sidii qofka foolxum aad ku tiraahid wad foolxum tahay sidii kii gaabna aad ku tiraahid wad gaabantay sidii qofkii lug beelay ama qacan beelay aad ku tiraahid laangare ama qacan aad ugu yeedhid su'aalo fara badan hadallo fara badan oo wadnaha gooynaysa oo taasoo ay sheegayso in wadnaheenu uu dhagaxu noqday ama inaan waxba aanan dareemeyn ama aanan damqanayn waxa jirta dhowr sabab oo maanta waxa laga bilaabo kugu kalifaysa in dhaqanka bedeshid ama dadka dareenkooda aad ilaalisid oo sida quraaradaha aad ula dhaqantid sababta koobaad waxa weeyaan dadka inta badan dadka dabagala ama wax qodqoda ama arimahooda dhexgala waa qof runtii noloshii ka dhacay ama hadaf nolosha ku lahayn ama wuxuu ku mashquulo aanay jirin carabtu qaarkood waxay ku maamaahan ama qofka markay habaarayaan waxay ku habaaraan ilaahay dadka ha kugu mashquuliyo ay macnaheedu ay tahay naftaada aad ka mashquultid oo naftaada aanad horumar gaadhsiinin oo dadka intaad ka hadlaysid ama dacaysid aad ku mashquultid ninka caalimka la yiraahdo ibn kathir buug buu qoray buuga wuxuu ku ururiyay magacyada loo malaynayo inay tahay magacyada fircaunkii Masar joogi jiray ee Ilaahay Quraanka uu ku sheegay markuu magacyadaas uu ururiyay ee farabadnayd ayaa xaashada ugu dambeysay wuxuu ku qoray Ilaahay baa nacdalay Fircawn kulliba Ilaahay ima weydiinayo magaciisa aniga baxaa magaciisa iga galay sababta labaad waxa weeyaan wayna dadka ula dhaqantid sida jeceshayna lagu la dhaqmo oo wadnahoodan aad ka soo qaadid dun xariiro oo go'aysa ama aad ka soo qaadid beed jabaya nabiga kaleey salaatu wasalaam aad buu dadka dareenkooda u ilaalin jiray suxumna uu eegi jirin markastana dadka uu qosli jiray xataa haduu qofka uu ka xareysan yahay wuxuu gaadhay heer inuu ilaaliyo dareenka xawayaanka maalinba waxa uu imi nabiga kaleey salaatu wasalaam isagoo beer kamida beeraha ansaarka dhex soconaya ayaa awr cararaya oo ilmo indhiisu ka da'ayso ee nabiga kaleey salaatu wasalaam ayuu imi markaasuu u ashtakoodo u sheegay in la dilo oo la gaajeysiyo markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu u yeeray nin dhalinyaro oo beerta ka shaqeynayay wuxuu ku iri ilaahay ka cabso xawayaankan ilaahay qacantaada uu geliyay dhibta iyo gaajada ka daa taas buu dhaqanka nabiga kaleey salaatu wasalaam uu la dhaqmo jiray xawayaanka oo dareenkiisa ilaalin jiray hadaba ka waran bin aadamka dareenkiisa sababta kale ee kugu kalifaysa dhaqankan inaad bedeshid runtii waa axmaqnimo in dadka dareenkooda aad daawacdid oo waxa doonaysid aad ku tiraahid oo dhaawacaasuna xataa uu gaaro dadkii dhintay xabaalahooda ku jira weligiin ma maqasheen nin la ilaaho al-Waliid bin Mughira ninkaas wuxuu noolaan jiray barigii nabiga kaleey salaatu wasalaam ay waqtigiisa uu noolaan jiray
الوليد بن مغيرة waxaa loo bixin jiray rayxaanad quraysh waxaanu ka mid ahaa madaxda quraysh uu ka mid ahaa wuxuu gaadhay heer inuu sanad isagoo keligii kacbadda uu ka bedelo marada madow sanadka dambena quraysh oo dhan lacag ay soo ururiso iyagoo ay ka bedelaan kacbadda maradeeda madow ninkaas wuxuu ilaahay siiyey beero fara badan oo midho fara badan soo saarta addoon fara badan baa u shaqayn jirtay lacag fara badan buu siiyey wuxuu siiyey xikmad iyo mansab iyo xil buu siiyey waxaanu ilaahay siiyey 13 inamood markaasuu aad buu u faani jiray wuxuu oran jiray ana alwaxiid ibn alwaxiid oo macnaheedu ay tahay aniga qof ilamida lama abuurin oo quraysh iyo adduunka qof ilamida ma jiro aabahayna almughira qof lamida ma jiro ninkaas ubadku dhalay ama inamadu dhalay waxa ka mid ahaa Khalid bin Walid Khalidna waa garanaysaan oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu bixiyay sayfullah almasluul alwalid bin Mughira markuu quraanku nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu ku soo degay ayaa uu kibray wuxuu yiri quraanku iyo diintu wuxuu ku soo degaysaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ee faqiirka oo anigii baa liiga tagaya ninkii ugu lacagta badnaa Quraysh ahaa ee ugu xikmadda badnaa ee boqorka Quraysh ahaa intuu quraankii uu dhageystay oo isagoo maalin nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam quraanka akhriyayo ayaa wuxuu yiri Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa saaxir maydin arkin inuu gabadha iyo ninka uu kala kaxeeyo isqaba caruurta iyo waalidkoodana uu isku diro maydin arkin isagu waa saaxir markaasuu ilaahay uu soo dajiyay aayadan ku taala suurat al-mudaththir ilaahay isagoo ninka u dhaaranaya ayaa wuxuu yiri dharni waman khalaqtu wahidan waj'altu lahu maalan mamduudan wa baniina shuhuudan sadaqa Allahu al-azim wuxuu isticmaal ilaahay arigu isagoo markaas isticmaali jiro oran jiray ana al-wahid ibn al-wahid markaasuu ilaahay quraanka ku yiri waman khalaqtu wahidan hadowtana aayada 25 suurat al-mudaththir ilaahay wuxuu yiri saaslihi saqar oo ay tahay naarta ayaan ku tuuraya Khalid bin Walid markuu muslimay ayaa marmar qaarkood markuu quraanka akhriyo uu soo gaaro aayada oranaysa dharni waman khalaqtu wahidan ayaa uu isku ooyi jiray uu barooran jiray isagoo xasuusanaya aabihii sida uu jeclaa aabihii la ciyaaraya aabihii sida uu soo rabeeyay sida uu soo kariyay taasuna aad bay u damqa jirtay oo maantana ilaahay aabihii uu u dhaaranayo oo la sheegay inuu naarta uu tagayo saxaabadu way ogaayeen taas markii arkaan Khalid bin Walid isagoo soo socdo salaada la tukanaya ama daba taagan may akhri jirin suurat al-mudaththir ama aayada dharni waman khalaqtu wahidan way iska ilaalin jireen inay akhriyaan iyagoo taasna ay dhowrayaan dareenka Khalid bin Walid oo ay diideen inay dhaawacaan ama aabihii inay xasuusiyaan waxa jiray kale nin leeyahay Ikrima bin Jahl isagoo waa saxaabi ninka waxa dhalay Abu Jahl ogtihiin colaadu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam وهي دين إسلامك عكرمة مركو مسلمي أيه وحو إيمي المدينة المنورة مركاسا مركي صحابتي أركان أي بلابن إني كهدلان وإصحموا إيغان ويكو عايان آبيه مركاسو مروقودو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتغي محمد صلى الله عليه وسلم أيه صحابتي بقو يروحو كو إلي آبيه هعاينا قفك ميتك إردنتي إسكدايا هعاينا مركاسي صحابتي دقن كود أي بدلين من ما ننتو حلقة بلابي آبينا مني حسوسين جرين كماني عاي جرين dareenkiisana way ilaalin jireen haduu ahaa dhaqankaas uu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadu ay la dhaqmi jireen dadkii dhintay la dhowri jiray dareenkooda iyo dareenka ubadkooda hadaba ka waran dadka nool sidee bay tahay in dareenkooda aad u ilaalisid ma waxaad u malaynaysaa hadaba diinta islaamku inay tahay salaad aad ku ooyeysid adigoo taagan ama inay tahay maracad aad gashanaysid xajka aad tagaysid oo kacbada aad ku wareegaysid ama dhagaxa madow adduunkanaysid adigoo ay jiraan dabadaada dad fara badan oo aad daawacday oo dareenkooda aad dishay oo ilmo indhahooda aad ka keentay oo markii ku xasuustaanba ay ku habaarayaan ma malaynaysa inuu Ilaahay ka aqbalay cibaadadaada ama inay taas ay tahay diinta islaamka dhabta iyo akhlaaqda islaamka waxa weeyaan in dadku ay ka nabad galaan carabkaaga sidoo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu inoogu sheegay diinta akhlaaqda waxa weeyaan in dadka aad nabad gelisid waa mahadsantiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.